tahay cidda warbaahinta Jarmalka ee DW iyo sidoo kale website-ka ARD la wadaagtay xogta Ayub General Ayub iyo sidoo kale ninkan dhalinyarada ah ee Yacquub Siyaad meeqa dhaqaale ah ama qarash ah ayaa xogtaasi lagu bixiyay maxay tahay ujeedada ay ka leeyihiin kooxahan iyo xalka looga hortagi karo ayaan barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan fogeeya shaashadaha garaaca garyaqaan kasta iyo lawyer kasta oo Soomaaliyeed hala gaarsiiyo si gaar ahna waxaan hayaa dukumentiyo sharci ah oo lagu difaaci karo dhalinyaradaas sidoo kalena markaasi qatar ku ah warbaahinta dawladda Jarmalka ee DW iyo sidoo kale ARD ninba waxa laga sheegay Axmed Cali Cigaal baa wuxuu tagay Mareykanka soo yiri hadda Michael Jackson loo yaaba warbaahinta Jarmalka ee DW iyo sidoo kale ARD saaxadayna ka bixi doonaan kiiskan waa kiiskii ay saaxada uga bixi lahaayeen soo dhawaada dhamaantiin fogeeya aad waa maasantiin aynu ku bilowno website-yada ARD iyo sidoo kale warbaahinta Jarmalka ee wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalku markaasi ay si gaar ah u maamuso codka dawladda Jarmalkana ku hadla ee loo yaqaan DW ayaa waxa ay diyaarinayaan hadda ama bulshada rabaan inay la wadaagaan documentary lagu eedeynayo labadan dhalinyarada ah waa Ayub Cabdirsaaq iyo sidoo kale Yacquub Siyaad waxaana dhalinyaradan ay ka soo jeedaan beesha Daarood Harti beelweynta Majeerteen Maxamuud Saleebaan waa rag dhalinyaro isku deegaan oo reer Puntland ah waxa lagu haystaa ujeedadu ay tahay qaabkii ay uga qayb qaateen dagaalka Laascaanood haddaba cidda sida targetka ah loo beegsanayo waa General Ayub Cabdirsaaq waxaana warbixinta lagu sheegay in sidii haliyay loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood iyo Buuhoodle iyo magaalada Garowe taas oo aad ay uga xumaadeen in ninkii ka qayb qaatay dagaalkii Soomaaliland looga saaray gobolka Sool markii wadanka imaaday sidii haliyaygii loo soo dhaweeyay ismaduna ay magaca General u magacaabeen waxay warbixinta ku soo qaateen muuqaalka uu joogo oo qoriga suuga ahrigayo iyagoo sidoo kalena soo qaatay tuuta ciidan oo qabo markii uu dagaalkii buuraha Calmiskaad ka qayb galay sidoo kale warbixinta waxa la soo qaatay isagoo madaxweyne Dani markaasi dhaawiciisa uu ku booqanayo cisbitaalka magaalada Boosaaso haddaba yay tahay cidda xogtan la wadaagtay wargeysku waxa uu sheegay in Soomaali ku sugan Jarmalku ay xogtan la wadaageen Soomaalidaas yay tahay waxaan soo ogaaday oo xaqiijiyay in dhalinyarada beelaha Isaaq ee ku sugan Jarmalka iyo London ay iskaashadeen dacwadan ay markaasi gogol xaar u tahay in warbaahinta Jarmalka inta la mariyo hadhowna dacwad maxkamadeed raggan dhalinyarada ah la keeno lacagta ku baxday waxa la xaqiijinay kor u dhaafayso $50,000 waxaana iska kaashaday jaaliyada beelaha Isaaq ee Jarmalka iyo sidoo kale Ingiriiska iyo maamulka Somaliland waxaana la rabaa in ay u sii gogol xaarto inta xogta la marsado warbaahinta Jarmalka sidii loo maxkamadayn lahaa waxay ku soo aadaysaa xilli shalay uu Ayub page-kiisa gaarka ee Facebook ku sheegay in markaasi uu soo nabadgalay Yurub isagoo qoraalka xataa lagu soo qaatay oo lagu yiri qoraalka Ayub wuxuu yiri baryaan kala maqnayna Yurub ay nabadba waana xogtii uu ku baahiyay boggiisa gaarka ee Facebook waxaana arintu ku soo aadaysaa xilli Ayub uu imaaday ama ku soo guriyo noqday Yurub gaar ahaan Faransiiska iyada oo markaasi bartilmaameedkuna uu yahay ninkaas dhalinyarada ah maxay tahay markay sababta Ayub loo bartilmaameysanayo ninka dhalinyarada ah Yacquub Siyaad isaga waa ku xoojin waayo Yacquub Siyaad haday dacweynayaan horay buu meesha u joogay wuxuu ku soo aadayaa kiisku markii Ayub uu boggiisa Facebook ku sheegay in uu Jarmalka soo gaaray Yacquub Siyaad isaga waa ku xoojin sababta ay ku xoojinta u tahayna waan cadeynaya Yacquub si dacwadu ay ugu ekaato mid dhab ah waxa lagu qoray wargeyska in dawladda Puntland ay maxkamadaysay 10 sano macnaheedu si labadaba looga dhigo dambiilayaal oo dooda Ayub ay u noqoto mid culus waxa la soo qaatay maxkamadayntii Puntland ay maxkamadaysay ninka loo yaqaan Yacquub Siyaad sidaas darteed qofka loo soo Yacquub Siyaad ma ahan oo kaarka waa lagu xoqday balse qofka la raadinayo waxa weeye waa General Ayub haddaba maxay tahay danta iyo ujeedada ay ka leeyihiin way caddahay danta iyo ujeedada laga leeyahay waa Ferasti waa in
wixii ka dhacay laascaanood oo xasuuq iyo genocide ahayd qof kasta oo ka hadlay markaasi laga dhigo inuu dambiilo yahay haddii ayuub oo ka hadlay dagaalkii laascaanood oo dadkiisa oo lagu soo duulay difaacay maxay noqonayaan faysal cabdi bootaan garka yagolka cali barre muuse biixi nuux taani iyo raggii la midka ahaa maxay noqonayaan haddii ayuub uu dambiilay noqday maxay noqonayaan raggaasi runtii waa dood jaban oo raqiisa waana arrin qabyaaladaysan oo aad u jeedaan in duulaan lagu yahay dadkii u dooday qadiyadii SSC qaatumo xilligii uu socday dagaalkii qaraaraa ee magaalada laascaanood raggaas ama ninkaas dhalinyarada ah wuxuu u dhimanayaa waa codkii uu dadkiisa ku kiciyey bulshada harti uu isugu soo dumay dagaalkii gobolka soolna uu ugu guulaystay waxa loo haysto waa intaas weeye ujeedada ka wada midaas midda labaad waxa weeye in markaasi Somaliland laga dhigo dulmanay SSC qaatumo iyo dadkii harti ee la dagaalamay ee iska difaacayna laga dhigo dambiilayaal labadaas ujeedada laga leeyahay ee midda ugu dambayso oo ah cabsi gelin in uusan jiri karin qof dambe oo ka hadla qadiyadan tusaale ahaan oo kale ceeri gaabo ayaa hadda fooda la isdari doona dhawaan qofkii ka hadla oo miidiya ka hadla ama Yurub ha jooga ama Afrika ha jooga intuun kala soo qabta ayaa la rabaa marka arrintaas sidee looga hortagi karaa muxuu sayahay xalka waan hayaa warbaahinta DW waxay ku kacday ama ay ku kacday fal dambiyeed saxaafadda ka dhanka ah waxay wareysatay hal dhinac waxaana ka muuqatay in si gaar ah loo soo abaabulay oo maalgelin waliba maaliyada iyo masuqmaasuq lagu abaabulay taas waa jabin sharci oo iyadoo raggan aan maxkamad lagu xukumin ayay waxay diyaarsadeen dukumiinti iskood ah oo waliba hal garab ay wareysteen garabka kale wuxuu xaquuq u leeyahay sida shuruucda caalamka qabtay inuu isdifaaco ma aysan samayn waa jabin ay warbaahintaasi ku kacday dulmi ay ka gashay reer gaar ah ama jifi gaar ah ay ka gashay waxaan diyaariyay dukumiinti qofkii u baahan ama lawyer ah raggaasna waan wada xiriirnay ee si gaar ah arrintan u doodayana way la soo xiriiri karaa hadda arrintan halkan waa Facebook iyo media ma raba inaan la wadaago waan sacadayn doonaa way la soo xiriiri kartaan lambarkayga waa kaasa halkaas ayaad la soo xiriiri kartaan aad baan idin salaamaya macluumaadkana xogtu saasi u jirtaa lacag $50,000 ka badan ku baxday muddo dheer baan laga shaqeynayay waan arrin soo jiitamasay hadda waxa loogu soo aadiyay waa imaatinka Ayuub ee Yurub waxa looga gol leeyahayna waa in warbaahinta Jarmalku ay marka hore sii faafiso hadhowna kiiska maxkamadda la galgalo oo raggan dambiye lagu xukumo ama la soo tarxiilo waa intaas weeye ninkan Yacquubna isaga waa iskaga xoqosho weeye kiirkiisu waa mataqaanaayay waa ku xoqosho weeye kaarka isaga waxa laga rabaa maxkamadayntii Puntland maxkamadaysay baa la rabaa laba dambiile in laga dhigo waxaan sala yaabanahay anigu war xataa Ayuub wuxuu ka agdhawaa Siciid Dani leefleefkii madaxweyne Dani uu idan leefleefayay oo laha Soomaaliland walaalayn xataa ma ku dayn waayeen runtii beesha Isaaq waa rag mataqaanay maalin cidii daabatay yaqaana cidii qanjaruufatay taqaana oo aan leefleef iyo niika karayn ku qus qaadaan leenay Siciid Dani adiguna qayb baa ka tahay dadka ay Isaaq maxkamadeeyeen adna cod baad ka rabtaa adiguna qayb baa ka tahay laftigaaga qayb ka ah waayo adigu si toos ah dagaalka laascaanood u sheegtay in la difaaco gaalkacyada ka urisay dagaalka markay adigana waa lagu gaatamaya meelna waa ka leefleefaysa meelna aad laga gaatamaya waxaan leeyahay wacyigiinu ha weynaada aad baan idin salaamay meel kasta joogtaan haddaba warbixinta 8 daqiiqo ah ee aad daawateen maxaa ku baxay adiga bal qaybta hoos aragtidaada igula wadaag aniga maxaa ii baxay aniga waxa ii baxay beesha Isaaq gar iyo gardarraba in qof ay isleeyihiin marbu idan qanjaruuftay aysan cafin doonin ama isagu hanikiyo ama haleefleefo inaysan cidna cafin doonin waana waxa 24 saac aan dadkan u leeyahay war hooy dano muddo kooban dhamaanaya qadiyadihiina hasiisanina hadii la dacweeyay Ayuub waliba sawirka lagu dacweeyay waa sawirka madaxweyne Dani waxay ku dacweynayaan sawirka madaxweyne Dani oo waxay leeyihiin waxaaba ninkan la og howlaha oo wata madaxda ugu sareysa Puntland ninka xogta dusiyay ee leeyla wadaagay magaciisa Cabdullaahi baa la yiraahdaa sirdoonka Soomaaliland buu ka tirsan yahay maamul beeleedka majeerteen ayaa ka dambeeyay leeyahay fidnadii ka dhacday gobolka Sool iyaga ciidanka abaabulay iyaga tiknikada shidaalka ku shubay waxay ku qorayaan dhulbahante oo reer Soomaaliland ah ma aysan dagaalami karin hal maalin dagaal cidda garabka u noqotay oo gaashaanka u noqotay waa maamul beeleedka leeyahay majeerteen
oo dawlad ah asaasi aaminsan yihiin macnaheedu markii waxa lagu dacweynayna waa sawirka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markii Ayuub uu Saciid Cabdullaahi Dani uu ku booqanay cisbitaalka dhaawacii ka soo gaaray dagaalka calmiskaad baa lagu dacweeyay oo xataa ma xeerin waayeen hadalladii madaxweyne Dani ka soo yeerayay iyo Soomaaliland walaalaan nahay iyo xidid baan nahay saddex jeer badani waa u jileecay mar wuxuu yiri xidid baan nahay oo wiilkayga gabar ka qaba mar wuxuu yiri waxaan ku daydaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal mar wuxuu yiri walaalaan nahay oo cadow uma naqaan marna wuxuu leeyahay isku socodkii wax kastaan furayna حتى انت اسمع ايوب او دني صاحب كيس اما دني u dhawaa حتى ما ku qadarin waayeen meel ba u cad waxa u cad way garanayaan waxa u cad iyagu waa yaqaanaan laakiin Saciid aan waxba garanayn oo maalin walba sidii nayl heeca ah dab taagan waa la yaqaanaa aan ku ballaariyo beesha harti weeye daarood isma saarna ha waliba beesha ma jirteen weeye ana runtii idin sheegaya ma wada qaadanayaan godobta beelaha harti ha ma wada qaadanayaan waxa nayl heecada mar walba guriga reerood suuraafaysa oo dabka taagan waa beesha ma jirteen weeye waxa kale oo iga baxay in isaaq doonayo dambiyadii iyo gobol-falladii ay geysteen inay qariyaan dunida u muujiyaan in laga gardarnaa halkaasna waa habacsanaan ka timid beelaha harti iyo daarood ee ku sugan qurbaha ama Mareykan ha joogaan ama reer galbeed ha joogaan ama Yurub ha joogaan meel kasta ha joogaan runtii booskaas waa buuxin weydin aaway aqoon-yahanadii beelaha daarood aaway mataqaanay garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii beelaha harti maxaa loo dhahaa maxkamadda ugu sareysa adduunka in hartiya jooga waa ogahay inuu shuruucda dalkiisa uu hogaansamayo maxkamadaas laakiinsi war xataa qabiil ahaan baa laydin bartilmaameedsanaya oo waxaan marqaati ka nahay in tuke laga soo raafay Mareykanka laga soo tarxiilay inta la falaga daba qaatay ina kaahin iyo Muuse Biixina maanta ay joogaan oo dhaga weyna uu joogo wala iyagu aysan Hargeysa ka bixin oo is ogayeen waa niman godobta ogod وأنا ما قدرت هذا إن كاهن يدق وين أود حسوقية كجيستي مدق ما أنت يمتقانا ما أدي كلام ودمش شيء أوكي إن بيحي ين متقانا عندها إن كاهن يمتقانا يشق إن يدق وين واحد جوجان ما أنت هرجيس لكن سمجر تضد مجرتنا وحسوقية دي مدق كدياري فيل مجرى قرب جوج مجرتنا كدياري شو حنقول له يسقون مرة عاير البهان تفتضها يستا شوحي أن ربني ورمجع يجا بعد وزير كنا قطع أساس دي فالكن كذا أدوده والبهانتين من الريحان بو تفتح يستا والبهانتين من الريحان واحد تفتح يستا إساق يا مجار تنبا وحنا نقضي دقنتي هلك عدونا تلك كوي طبعا كين دهنا تلك كوي جسي هلك عدونا إيش كوي جسي بعد رمانت الجوحة إنه كاهن ما تغنى يدقوا وينه كلا قدام بيكسوق ما أرجعنا ننتبه على برتلام السنة وسعيد اللي تلي ساعة ها dad waxa weeye daaroodku hada aragtid waa umulkay ana runtii idin sheegaya waxa lama kala qarsa canaana iga noqoto adeer macaana meesha kaliigaysid waa inaad bombada ku dhufatid anu waxba ma qarinayo hartiga waliba siiba reerka ma jeerteen waa umul weeye adeer daarood xoogiisi waa idinka oo ciidankiisa waa idinka oo hantidiisa waa idinka hadana meel bad kaliigaysan oo wallahi oo billahi oo tallaahi daarood ugaadeen baa ugu badan kabla laxbar dhix baa cududiisa ugaadeen saddex wadan buu dagaa iyagu hadii dhaqala laga helay burosidan laakiin si inooma tirsana markaan la inooma tirsana yaan gaf la iga mudin laakiin si xaqiiqada sayta duruufo ba kala xeeray laakiin si beesha ma jeerteen ba daaroodka Soomaaliya la rabay inay iyadu hogaamiso waa xaqiiqada rasmiga ah way mana moodinay doorkoodii qaadanayaan ha beesha ma jeerteen Allah u naxariiso madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf duu meesha ka baxay inay doorkooda qaataan baa la rabay aw siyaasiyiintii ma jeerteen waxaan isku sharaxayaa waxaankaygu yahay inaan farmaajo meesha ka tuuro waxaankaygu yahay inaan shirka mudulaad ka qayb galo shirka mudulaad buu kala laasay maanta laad badawada laga galiyay ay waa inaa qaadatid meesha ka liigaysid daaroodka Soomaaliya jooga waxa saas ka dhigay inay u gumoobaan oo waxba qabsan waayaan beerta ma jeerteen baa ka dhigtay anaanahay ugu noqotaan in ma jeerteen waliba reerka Maxamuud Salebaan ka dhashay anay ma jeerteen waliba Maxamuud Salebaan كداية تولك الدبيدابية أو تولك ما أنت مجا هذين نقطة يا ماموس هذين نقطة يا ما تغني هذين نقطة عدود يا هذين نقطة إلى هاي إذن كودين دين والله كنت تشابين يا تولك إسكو أروش ورتلوا تولنا إسكو أروش تولك أو هرتجي إسكو أروش أو بدارات كإسكو أروش وهذا ده وح مقليتهم مالك استاجوكتان ها يان رمنا ما أنت هنا الحساب 8 سنة
إلا أن SSDF جبهتي دارود بل ولا قيب صديق أسنا مدين نوع عن ودقميسو ودتك هرتي دارود يصور رافيسو ملك سو قد بتجيسو وإلا فها قرانيسو يا أهيدين ما أنت جبهتي يدي سو SSDF ماين يا أوي دتك SSDF ما يصاب بندقان هبنا إن كاهن يلا وين الدنبية أي جيستان ودك كسمي وراق دقان حتى وين الله قلنا ودمدان عربته بوينا كاين تجا مالك أبو ظبي بوتجا وين حتى الله قلنا ها نو يوسف واحد كان نقدين سجود هل كان واحد فريق قدر يبيلها دول بهانته أقوياء كدول بهانته ما تغنى دتك ما تغنى قرصوريات دول بهانته لما كي قويدين لو ذاكي هل كان سوي سنة عد كستو بهان دوكمنتري في إنجليزي أو ديار سن أو لو ديارنا يدعو ذي دنبيدي كذا حسوقي الله سعانود وانو هيا قفك الدياريين ومهتسين هاي هذا السنة من لفظ صدق نشان سنة كار بالبريبات تكل وجوه ترحيلي لو كنا عطني أفر هذيك أنا نيجي أجيب أقويان إلى يمانتنا ميل لكم تورني معاك قبنا يسالوا البهانتو والرول بهانت أدوك معاك قبنا يسال أوي أقويان ندي دول بهانتي أوي قبلي جامعيين تاي دول بهانتي أوي شرعية قاندي دول بهانتي هاي لفها كان أدوك ما رورستي أنت أصلا هرتيا كل ما تلا سعانو ده ليه بقولوا كنا قفك صبرك على مقالة ده عدد كيبا هيستا يجو حتى عدد ما هيستان تكو هلا حسوق أرجسم يا لا يا مايا لفق قبيل اللي يهرب اللي جاي مريكنك أديك لفها جيب على عدد كاجي وترب واسسي مساجد هذا أبوان هذه ولا حسوقي نقول بانت هذيك أنا معاك غلطان حسن الشيخ بعمل لفلف كيس وعمكم التريساي وحي كوتري سابا يلا تمجرته حسن الشيخ محمود هور فيست كساعة والله وانت لنا إياه قالك السنة وحي كو غلطان تيوان شيء حسن الشيخ محمود هور فيست كيس والله بينا وحبي دين ترين ها دم بين الله إن السياسة واقف أنتج مدي دنين لا شقيسته لكن سيوسو دنين النسجين أوي دعوة دي سو دعوة اللي اسمه وجينا لقاضو ما هاي ذيك غلطان عاوي وحال لقضية إن سومالي ظلمي للظلمي ووجدا إذن كنا دم بليالتين ما هاي ذيك غلطان والفرهين تيدا جرس وردا إيه جري قناة باشا دول بان ترى يدمر بملك استوي جوكان سوى عندك جين ها سرع إذن كولي بقى حتى أنت هسه دوكيمنتوان كوايا أنت هسه دوكيمنتو ولي باشا عالم كله هور كنيمان كوايا أو أتكدو هذي كرتد بان كوايا وفيلا ورما يو أنا وكباسة أنا وحكوز وجود بالنوالين هاي لكن سميلها قاردد بأنه قفر دوبان وحكستان كيرنا ما شقيسان إنسان مسوا عن نقنيسان هبرتان ميجت الله مالك السومو شابان نقنيسان runtii wallaahi billahi waxa socda waa waxaan la wayeeqsiin yahay bal ka soo qaad buruco oo 2023 waxa iska dhici lahaa oo hinta iyo barorta dhici lahayd iyo ismiinbiinta dhici lahayd ka war ceerigaaba kaliya hadii wax ka dhici lahaayeen ka war dagaal caadi ka dhici lahaa maxaa dhici lahaa haddaan la yaabanahay ceerigaaba dagaalkii waliba dadka soo barakiciyeen bay meel kasta waxay ku qorayaan argagixisa ku soo duushay warnimayo runtii wax badan baa idan ka qaldan warnimayo talo leh waxaana dareemayaa inuu jirto tafaraaruq ay jirto oo qolo walba meel ay ka biyaaleynayso oo meel taagan tahay oo dab taagan tahay heeca umulaha ay wadatiin dhamaantii mas'uuliyadda dhanna waxa qaadanaya beelaha hartiba qaadanaya beesha ma jeerteena waxaan leeyahay si gaar ah anigu aan ka dhashay saan aqli ma ahan anigu malihin waxa la coqdaday laakiinsi waa inaad godobtiina taqaanaan حتى دني باللفلف اللي لقمة احترامين كاتب لنا يلا ده نوعا هذا الكبدين مايو أدبنا دين سلامي ملك السؤال جوكتان لكن